Halkaad naga daawanaysaan waa Somali Sud Media. Kusoo dhawaada barnaamijkeenii Hubi Macluumaadkaaga. Ma ogtahay in magaalada ugu da'da weyn caalamka ay tahay magaalada Ariixa ee ku taala dhulka Falastiin? Mise ogtahay in caasimadda ugu qadiimsan adduunka ay tahay magaala madaxda Suuriya ee Dimashq? Ma ogtahay in webiga ugu dheer adduunka uu yahay webiga Niil ee mara dalal badan oo Afrikaan ah? Mise ogtahay in webiga ugu weyn baaxad ahaan adduunka uu yahay webiga Amazon ee mara dalal badan oo Koonfurta Ameerika ah? Ma ogtahay in qofkii ugu muddada dheeraa ee ka shaqeeyay laanta af Soomaaliga ee BBC-da uu ahaa Cabdulaahi Xaaji oo si joogto ah ugu shaqeynayay laanta in ka badan 30 sano? Cabdulaahi Xaaji wuxuu shaqada ka fariistay sanadkii 2000 iyadoo codkiisa isbedel muuqda ku dhicin, welina dhageystayaashu aad u xiiseynayeen. halkani waa London, laantii af Soomaaliga ee BBC-da oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 13 mitir band. xusuus aad u weyn bay igu leedahay, aad iyo aad. anigoo yar, wiil yara, gal madow leh, timo madow leh ayaan imid Bush House. Ma ogtahay in luuqadda loogu hadal badan yahay caalamka ay tahay luuqadda Shiinaha? Dadka ku hadla waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin ilaa 1 bilyan. Luuqadda labaad waa luuqadda Ingiriiska. Ma ogtahay in dalka Mareykanka maalinta 16 Janaayo looga yaqaano maalinta waxqabad la'aanta ama National Nothing Day? Waxaa maalintaas lagu xusaa in meelaha la iska fadhiyo waxaa asteeyay wariye la yiraahdo Paul Pullman Coffin. Ma ogtahay in maalinta 1 Abriil ay tahay maalinta beenta adduunka? Waxaa maalintaas lagu maamuusaa in warar been ah la shaaciyo oo qaarkood ay run u dhow yihiin. Ma ogtahay in lacagta adduunka ugu qaalisan ay tahay lacagta dalka Kuwait ee diinaarka? Waxaa halkii diinaar lagu sarifaa in ku dhow $3. Ma ogtahay in cayayaanka dhulka ku socda kan ugu xabaaraha badan ay tahay baranbarada ku nool dhulalka kuleelaha? Ma ogtahay in qofkii ugu horeeyay cagta saara dayaxa uu ahaa Neil Armstrong oo u dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd Juulaay 20-keedii 1969? Ma ogtahay in qofku uu celcelis neefsado daqiiqadii 20 goor, sidoo kale in ka badan 10 milyan sanadkii? Ma ogtahay in dagaalkii ugu yaraa uu dhex maray United Kingdom iyo Zanzibar oo hadda ka mid ah dalka Tanzania? Wuxuu dagaalkaasi socday 3 saac iyo 2 daqiiqo subaxnimo ilaa 3 saac 48 daqiiqo subaxnimo. Dagaalkaasi wuxuu socday 39 daqiiqo iyo 58 ilbiriqsi. taariikhdu markay ahayd Agoosto 27, 1986. Ma ogtahay in haweeneydii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare noqosa ay ahayd Sirmafo Bandaranaike oo u dhalatay dalka Sri Lanka? Waxay markii ugu horeysay jagadaasi qabatay 1960 ilaa 1965. Ma ogtahay in haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne noqota ay ahayd Isabel Perón oo u dhalatay Argentina? Isabel Perón waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee jagada madaxweynenimada qabata kadib markii uu geeriyooday saygeedii Generaal Juan Perón. Ma ogtahay in dagaalkii ugu dhimashada badnaa uu yahay dagaalkii labaad ee adduunka oo socday Sebtembar 1, 1939 ilaa Sebtembar 2, 1945? Waxaa dadka ku dhintay lagu qiyaasaa 56.4 milyan. Ma ogtahay in xisbiga siyaasiga ee ugu ballaaran adduunka uu yahay xisbiga Shuuciga ee dalka Shiinaha ee loo yaqaan CPC? Waxaa xubno ka ah dad ka badan 50 milyan. Ma ogtahay in dharkii aroos ee ugu qaalisanaa uu ahaa mid uu sameeyay Helena Gambilla? Dharkaas oo lagu xardhay dahab iyo diamond
waxaa lagu qiimeeyey 7.3 milyan bishii Maarso ee 1989.